حتى مركي هاد الصوص صار ورقدها ويفتها وريتوين كا قلب دستوري ذكى مرة في الجريان مرة ونقضان أنا مركي وحاربنا جعلك قدتك الثلاثة جو كمسعنه ويجعلك كنا يونيتي ستيت كي نظام كي نحكي ترسك على سومال إنه هو لكن دود دي بريدين هكينا حنا ردتك أوصل بندك تحقق عيان ردتك. وين الدولة ذا جرا وقدر كمتاعي إرتري كمتاعي هذه مرة إرتري جوتي حريد وجرت خدرنا أرتيات كلها ما هي كل دوين إرتري أو كفاية ستة اسبدل كإثيوبيا ولا صاحب الصومالي إثيوبيا هي خضر وواجه صاحب الأهل الصومالي ما ترى صاحب الأهل فرق الحين أنا جو حان شيء الدولة ده قدر صومالي دنك يالته ومديدني إني صوماليا أيضا أي صاحب النقطة مديدني لكن واحد ديدنها إرتري هذا قصور بيرتي وهي تاجرين ورجيم نظام تاجرسيين دولة هذا كتالي أو حرير أيجا أود حياة أو شخصي أي كنت تاجرسيين يدنا مركز أي ربان سيدك دجولي بقى أنفوين إني حقيقي سدان أنا أداوي دولة قدر دولة انتقاد حس دولة يرى وهي استعني أنا قيمين تي الدولة ده مركز دنا استراتيجي لك هلا يعني وأنا دولة شيء توم اللي كون رفتها سيدنا استراتيجي دولة ويراتو أنا شيء توم اللي قارتها ما دعي كرت دولة شن بقوله كون دتك أيهين دنا استراتيجي ما بيجي كرتها لكن وحي ركرتها واحد اللي هذا disruption وحي ركرتها إني أي قص جهورير عدتك لك لبيسو إني كورتي ماد أنا جانا مرة إنه دولة ذاك الواحد لو لبايو إن أنا دنت سوماليا هذا قدرت إني سعودي كل بتا سوماليا أنا ما أقولين أنا سعودي وحاولنا قناة دولة وين أو استراتيجي إنتر سومالي كلا دحيو أو تاريخ ذا هذا آخر ساحة دجال قبوبة مركز سومالي إثيوبيا دجالين 1997 بقرك السعودي ملك فيصل iyo Jaafar Numeiri iyo Anwar Saadaat ay ahayn dawladda Soomaaliya garab taagnaa oo kaloo bigareynay Congress-ka iyo madaxweynayaasha Mareykanka in Soomaaliya la taageero qadar hatta qareed siyaasadda kuma jirin anaga dad marka waxa leenahay strategic ama Sacuudiga iyo Imaaraadka waxa lagu kala dooranaya leedahay hadda masaalixda iyo danaha iyo xiriirka soo jireenka Soomaaliya kala dhaxay iyo miisaanka iyo maqaamka ay ku leeyihiin adduunka siyaasadda arrimaha dibadda waa intaas laakiin haddii ani aan ku dhaho Soomaaliya waxaan u imaanaa inaan Sacuudiga ku dhibo uga argoosto anaga ma ogolin in Soomaaliya Sacuudi laga argoosto in Soomaaliya Masar laga argoosto rejiimyada ka jira dawladaha way isbedeli karaan mid ama tii kara laakiin anaga dawladaha waxaa jiro strategic ally ama xilf strategy ama isbahaysi strategy naga dhaxeeyo taariikhdani dawladnimadana qayb ka aha wadaagto hadda Masar halgankii Soomaaliya xorriyadeeda qayb ka ahayd dawladda waxaa jiro markii aan xaalada adag nasoo wajaheen nagarab istaagaa jiro dawladda hadda masaalixdeena tijaariga ama ganacsiga ama dhaqaale ay ku xiran yihiin jiro dawladdan waxba iga xirnayn oo ganacsi lahayn oo xiriir diblomaasiyad hore aan lahayn oo wax siyaasad naga dhaxaysa isi jirin oo wax taariikh naga dhaxaysa isi jirin inay anigu afduubnaado oo hadda waa aragtay codkii ugu dambeeyay la qaaday jaamacadda carabta dawladdeena qadar meesha wacdaysa un bay fiirsatay laakiin Masar ku dartay Masar Soomaaliya wuxuu taageeraysaa si Ethiopia oo masaalixdeeda iyo wax ka dhaxeeya iyo wabiga Niilka isku haystay darteed u taageeraysaa Soomaaliya ee u taageerayeen Soomaaliya inay taas nooca jirto Masar maalintii aan qaadanayna xorriyadda Soomaaliya waa la socotaa ninkii halkan yimid halgamaaga ahaa ee ka shaqeynayay Soomaaliya in xorriyaddeeda qayb loo noqdo Masar oo ah inay masaalixda iltiqaa al-masaalix ama karooska masaalixda inay kulanto aniga wax dhib kuma qabo laakiin waxaana fahamsaneen dawladda wax maslaxada ay leedahay aysan jirin ana waqti ku lumiyo oo aanan kula dhaco uga hor imaado dawlado waaweyn oo miisaan siyaasadeed adduunka ku leh gobolkana ku leh Soomaaliya xiriir taariikhi kala dhaxay inaan daraadood kula dhaco ayadana waxay meesha u joogtay ay tahay inay dawladaas ku dhibto aniga falsafada siyaasadeed ma garanayo oo ahayn kaashka yar oo ayada ka imaado oo siyaasadda lagu kala furfuro arrintii guriga ka dhacday dadka ay ku dhinteen 6 qofood meelahaas sidii loo xaliyay ilaa hadda yani qoraal laga soo saarin lama bayaan shir inta la qabto lama dhigin sidaas loo xaliyay malaha adigu waa ogtahay arrintaas loo xaliyay waxa loo xaliyay qayb diyadii wiilashii meesha ku dhintay waa la xaliyay dawladana dadkii ehelka ay ka dhinteen way siiyeen diyada laakiin dawladdu dadkii cadaalad ma siinin dadkii dhibka geysay lama maxkamadeynin dambiye laguma soo oogin wiilashii xataa meel ku aasin la hadda si xataa faataxa loo soo qabrigooda waalidkii ma yaqaanaan lama tusin dawladda garashay kama bixin duulaanka markuu dhacay dadaa la dilay waxna waa la furtay dagaal markuu dhacay dadna waa la dilay waxna waa la furtaa
gurigan lasoo weeraray oo xarunta ah baabuura lagu dudumiyey hantiyaa laga qaatay guriga dhismihiisii la dumiyey oo dayactir dadkii iska lahaa ay lacag dhowr iyo 20 kun dib u geliyeen qalab kombiyuutarro taleefanno wax kasta oo gurigan yaallay waa la xaalufiyey habeenkaas waana dowladdan waa haystaa liiska wayna og tahay ilaa haddana in waxa furka Soomaali u taqaana dowladda iska soo celis waa lagu kari laaya waxay burburisay waxay qaateen dadkii askartii meesha soo galay iyo wixii hanti ah ay qaateen iyo wax alaale waxay qaateen liiskeeda way haystaan waana og yihiin adigii madaxweynuhu saaxiiba ahaydeen 2016 waxa ahaydeen sawir badan isla gasheen mashaakilka waa dhexeyn mashaakilku wuxuu yimid markuu ninkani madaxweynaha dhibaatada salka waa xagee marka ilaa marka hore ismaadna haysani hadda waxa jira oo isku fiicnaydeen inay isla joogteen shaaha isla cabayseen maxaa jira aragtida madaxweynaha keentay madaxweynaha wuxuu aaminsan yahay hadduu qofka ka ra'yi duwan yahay in colaad iyo dagaal ka dhaxeeyo ra'yi duwanaanta ani magaalada waa ogeed siminaaraan qaba jiray doodaan qaba jiray dhibeediye ama aan dhalinyarada u qaba jiray dowladda ra'yiga ra'yi ka duwanaan sheegi jiray madaxweynaha wuxuu u qaatay haddaa ka ra'yi duwanta inay cadowgiisa tahay waa aragtidiisa un dadku markaas waxay lahaayeen idinkaa degdegay oo ma wada hadal maalintii la doorto 2 jeer 3 jeer arrinaa ugu dambeysay laakiin midaan ku sheegaba dadkii hadda waa kan madaxweynayaal hore iyo mid gobol ha ahaado ama mid federaal ha ahaado ama